السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة يا الكسر وهذا برنامجك قلبت ويدين داد هنا يعني جو فايدة هذا معالي مرتي ويهين اللي يرى ذا ريركو فوق البيت قيمه هذا كل دوان وما أنت إنك جاهد لدونه سامنت وكوية شيء عدل كوفيد 19 تالي ذا ريركو فوق البيت يفوسوا هذا الكيوغاندا برنامج كان واحد كلا لعبة كدا وانا يسان تلفزيون فوق البيت قيبتيسا أما استوديو هذا الكيوغاندا دعوة يا السيد وكلاته وحنا دين سو جود بدونا إن برنامج إنك جاهد لأنه وقص هم كجاهد لدونه عدل كوفيد 19 حتى واحد هل كان حاضر كان يقول الصوان قيبها كل دوان reer koonfur galbeed isugu jira jaaliyada gudoomiyaha jaaliyada dalka Uganda gudoomiyaha ardayda jaaliyada dalka Uganda iyo sidoo kale siyaasi rugcada ah oo ka soo jeeda sagana reer koonfur galbeed alaaba telefishinka naga daawanaysaan waa telefishinka koonfur galbeed studiyiisa dalka Uganda waxaan halkan barnaamijka aan ku tabin doonaa cudurka covid 19 oo dilaacay qadii December 2019 ilaa ma hadda laga joogo June toddobadeeda oo wali wadamo fara badan uu saameyn ku yeeshay laga soo bilaabo 20kii Maarso bandowgii lagu soo rogay dalkan Uganda ilaa iyo toddobada June oo maanta ku beegan waxa wali aan ku jirnaa stay home-kii ama saameyntii uu ku yeeshay covid 19 qaybaha waxbarashada ganacsiga ardayda isku socodka gaadiidka bulshada sidoo kale waxa wadankan ku sugan ardayda jaaliyada koonfur galbeed waa arday ugu badan dadku ku sugan yihiin dad arday dalkan wax ka barata walow saddexaad ay wali ku jiraan gaabkii waxbarashada waxaan alla ka rajaynaynaa inuu cudurkani in badan naga hareer mariyo waxaan la wadaagi doonaa ra'yadooda iyo siyaabaha ay dadka uga wacyigelinayaan gudoomiyaha ardayda jaaliyada sida dadka reer koonfur galbeed ee ku sugan dalka Uganda ay uga wacyigelin lahaayeen cudurkan saameynta baan ku yeeshay adduunka ay covid 19 waxaana marti igu ah halkan Xasan Xuseen Daahir oo ah gudoomiyaha jaaliyada dalka Uganda ee koonfur galbeed sidoo kale siyaasi Asad Xaaji Aadan oo ah siyaasi rugcada dhalinyaro ah waxa halkaas sidoo kale asagana aan ka marneen oo meesha buudi ugu weyneed xambaarsan gudoomiyaha ardayda jaaliyada koonfur galbeed ee dalka Uganda Master Maxamed Cusmaan Axmed oo lagu ku magac dheer deerow gabi ahaanba waxa barnaamijka aan idin socodsiin doona anigoo ah faa'iidada macali faa'iid duudishe kala socotaan oo ka daawanaysaan waa telefishinka koonfur galbeed qaybtiisa ama studiyiisa dalka Uganda caasimada Kampala barnaamijku waxa inoo furfuri doona gudoomiyaha jaaliyada koonfur galbeed Xasan Xuseen Daahir حسن كسو دواو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله إذا ما سنت فايت إذا ما سنت تنكلا ما يبقى فضي أنت أنا ما تعلي فرصتهم وجيك ونتم فردينا dadka ku qayb galay gudoomiyaha ardayda iyo TV-ga wariya Abdulwahab iyo asxaabtiis geeka kulanku ma yba iska koynay intii una iska xog wareysana xaaladda wadanka ka jirta bandowgu covid 19 ka iyo jaaliyada xaaladii iyo ardaydana intii una iska xog wareysana koyni ma sha Allah eedan ma santiin aad baad u mahadsan tahay ana sidaad la socotaan wadankani wuxuu bandowga ama saameynta uu ku yeeshay cudurka covid 19 lagu soo rogay lockdown-ka 20 March 2020 sidoo kale ilaa ma hadda oo lagu jiro toddobadii June wali waxa taagan waxaan ku jirnaa bandowgii wadankan saameynta uu ku yeeshay cudurka covid 19 oo saameeyay dhammaan dunida oo dhan sidaan ka warqabno waxaan rabnaa inaan dadka ama aan ka wacyigelino barnaamijka covid 19 ka waxaan rabaa in siyaasi dhalinyaro ah oo reer koonfur galbeed oo lagu magacaabo Asad Xaaji Aadan inuu naga falanqeeyo Rahmaan Rahiim horta sidaad wada ogtihiin ba horta cudurkan wuxuu wadan ku soo siyaaday joogo 3 bilood ama ku dhow dawladuna sidaad wada ogtihiin waxay soo rogtay ma garanaysa ay dadka ku soo rogtay lockdown si looga hortago waxa weeye cudurka covid 19 ama loo xakameeyo guud ahaan waxa la xiray isu socodkii sida ma garanaysa waxa weeye baabuurtii gobolada isaga kala gooshi jiray diyaaradihii waxa weeye garoomadii sidoo kale waxa la fasaxay iskuulaadkii qaybaha kala duwan ee waxbarashada waxa weeye sidoo kale ganacsiga dhan baa la xiray haday tahay ganacsiga waaweyn iyo ganacsiga yaryar intaba waxa weeye bandowga lagu soo rogay
bandowgaas waxa weeye wuxuu ahaa bandow habeen iyo maalin uu ahaa ayagoo waxa weeye dawladdu ay aad xoogga u saartay oo ma garanaysaa saysan dadku ma garanaysaa xanuunkaas loo xakameeyo aysan dadku ma garanaysaa aysan isugu imaan sidoo kale iyadoo la yareeyey dhaqdhaqaaqii markaas ee dadku ay ma garanaysaa soconayeen dadkana dawladdu ay kula talisay inay guryahooda ay joogaan marka waxa weeye run ahaantii annaga haddaan nahay waxa weeye ummadda Soomaaliyeed ee ku nool waddankan Uganda khaasan Kampala aad baan u soo dhaweynay sababtoo ah waxa weeye culaysi way jireen oo dadku waxa weeye dad iska xamaaltaa bay ahaayeen balse waxa weeye waxaaba ka darnaa musiibada tan waxa weeye guud ahaan caalamka bilaabatay waxa weeye si gaarana waxa weeye Uganda marka waxaan oran karaa run ahaantii dawladdu si wanaagsan bay u xakameysay run ahaantiina waxay ahayd tilaabo ma garanaysaa dawladda Uganda waxa weeye si wanaagsan loo wajahay bay ahayd ilaa xilligaana hadda waxa la fasaxay sida wada ogtihiinba ma garanaysaa ganacsiga yaryar weli bandowga intii badnayd weli wuu jiraa oo waxa weeye waddanku weli waa aad buu kala xiran yahay iyo caalamka guud ahaanba hadda saan loo wasay aad baad u mahadsan tahay Asad annagoo weli dhexda kaga jirna saameynta oo ku yeeshay bulshada Soomaaliyeed qaasatan bahweynta reer Koonfur Galbeed ee ku dhaqan dalka Uganda annagoo u wareysanayna jaaliyad iyo arday iyo maxaa la yiraahdaa siyaasiyiinta ama bulshada wax garadka ah markaa ku sugan ee ku abtirsata deegaanada Koonfur Galbeed sidoo kale waxa halkan inagula sugan Maxamed Cusmaan Deerow ah gudoomiyaha ardayda jaaliyadda Koonfur Galbeed ee dalka Uganda si uu nooga warbixiyo ardayda iyo saameynta uu ku yeeshay maadaama ay ardayyihiin jaamacadaha waxbarashada ay xiran yihiin waddankan ay u joogaan waxbarashadii saameyn intee leeg ay ku yeelatay COVID-19 hadda tihiin ardayda reer Koonfur Galbeed ka baranaysa dalka Uganda bismillaah marka hore walaal ma hadnagay gudoomiyaha jaaliyadda siyaasigana Masta Asad iyo walaalana Faid iyo kaamirmaankana oo Abduhab ma sha Allah ka arday ahaan COVID-19 sidoo wada ogna wali bilaawtay 20kii Mars 2020 ilaa hadda la kuroob almost 3 months ka arday ahaan anta kulay wala in koynay wal barashan koynay goobo la xiran wala kamid tahay jaamacad iskuulaadka masaajid khaniisooyinka manuqsayaan isku socodkii dadku dhan wala hiri lockdown-ka arday ahaan maadaama uu arday hayni saameyntu usii weeldhaday wala haytay kulay maadaama magaaladii dhan la hiri dhalinyartina arday ahaan wal barashan koon wal barashadii kulay gaabsiya gali in badan ardaydana kulay dhax qaadani xaaladii inuu ku hayni madun dhax qaadni ardayda qaar banaamada ay baxayeen iyo jireen ma sha Allah kulay lockdown ku bilisay socda wali la fududaay hata sida moolada taxiski oo special ka hayeen may kala wal barashadii inay fasaxay oo madaxweynaha dalkan fasaxay ardaydii oo haayeen finalistiga haayeen oo graduation ka sameeyeen haadeen bachelor degree master degree haadeen ardaydaas wali la fasay intii imtixaamada iyo meelera isu gabagabeysadaan iyo oo ilaaliyaan social distance caqabado weyn iyo qobadan wala taha maadaama ana arday intuu joog wal barasho waqti badan oo dhumiyay 3 bilood dareemo ku tanisiinba half semester hoob oo dhumi kulay macna dara dareemo korto ma sha Allah kulay ma sha Allah jamiil cudur oo meelay raayis caalamku dhan saameeyahay waan ka qanacsana maadaama uu sii cudur oo Ilaahay badan ka tirgalay dhammaan ardayda iyo jaaliyadda gudoomiyaha jaaliyadda siyaasiga da'da yar sidoo kale hansantihiin lagu xusay maamulka Koonfur Galbeed 6 Juun magaaladii Baydhabo xaruntii maamulka Koonfur Galbeed waxaan rabnaa inaan bahweyntii reer Koonfur Galbeed madax mas'uuliyiinteeda qaybaheeda kala duwan inaan anagana salaan aan hawada u marino waxaan rabaa maadaama siyaasi ruucada ah oo dhalinyaro ah wax badan arrimaha siyaasadda falanqeeyo oo nagu la sugan yahay halka Asad waxaan rabnaa in arrimaha maamulka Koonfur Galbeed iyo markii laga imaado xuskii annagoo hambalyo u direena dhammaan maamulka Koonfur Galbeed madaxweynaha ka yahay madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen golihiisa wasiirada baarlamaanka dhammaan inta ku abtirsata bahweynta Koonfur Galbeed ana wada leenahay hambalyo maamulka Koonfur Galbeed maxaa is leedahay hadeertaan waxyaabaha aan ku bogaadin karno ama aan is leenahay maanta waa wax wanaagsan maxay kula noqon kartaa horta fayda aad oo maasan tahay guud ahaan waa idin mahadcelinayaa bahda saxaafadda dhalinyarada aqoon-yahaniinta la jooga gudoomiyaha jaaliyadda gudoomiyaha ardada faa'iido dhammaantiin horta aad baa u mahadsantihiin haddaan u guda galo
qodobka ah maamulka koonfur galbeed horta run ahaantii waxaan oran karnaa horta maamulka koonfur galbeed run ahaantii inta madaxweyne cabdicasiis laftagareen uu joogay wuxuu ku tillaabsaday horumar la taaban karo oo ku tillaabsaday markaynu fiirino waxa weeye maamulku markii hore xaaladiisu say ahayd walow la sameeyey horumaro oo ma garanaysaa madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan oo asaguna wax badan soo qabtay xaaladdu meeshii taagnayd iyo hadda maamulku meeshuu taagan yahay sanadkii uu madaxweyne maxamed cabdicasiis maxamed lafta cabdicasiis maxamed xasan uu joogay run ahaantii waxaan oran karnaa waxa weeye isbeddel weyn baa waxa weeye maamulka koonfur galbeed laga sameeyey hadday tahay xagga ma garanaysaa wax ka beddelka sida golaha baarlamaanka oo kale oo run ahaantii lambar saad u tiro badan ay ahaayeen oo taasna ay keenaysay ma garanaysaa xagga dhaqaalaha oo ma garanaysaa aad ma garanaysaa u yaraa walow ma garanaysaa taasoo ma garanaysaa sababteeduna ay ahayd iyadoo waddanku ku jiray xaalado dagaal iyo ma garanaysaa waddan oo ahaa xaalado ma garanaysaa dagaal ay ragaadiyeen madaxweynaha horta taas uu ugu hambaliyeynayaa run ahaantii wuxuu qaatay tilaabo ma garanaysaa geesinimo lagu qaatay wax oo ma garanaysaa madaxdii ka horreysay ay samayn waayeen uu ku dhiiriday asagoo u danaynaya shacabka reer koonfur galbeed ma garanaysaa isagoo u danaynaya isla markaasna ma garanaysaa meelo badan wax ka eegayay sida xagga dhaqaalaha oo ma garanaysaa maadaama lambarka baarlamaanku aad u badnaa in la soo koobo lambarka baarlamaanka isla markaasna waxa weeye bulshada qaybaheeda kala duwan waxa weeye dhaqaalahaas waxa weeye lagu cesho sidoo kale xagga amniga run ahaantii madaxweynuhu waxaan oran karnaa wuxuu ka qabtay wax weyn buu ka qabtay sida ma garanaysaa gobolka Baay Shabeellada Hoose iyo gobolka Bakool waxa weeye run ahaantii waxyaalo badan buu ka qabtaan baan oran karnaa madaxweynuhu waxa weeye taasna aad buu ugu mahadsan yahay run ahaantiina madaxweynaha waxa weeye tillaabooyinka uu qaaday aad iyo aad baan waxa weeye ugu bogaadinayaa kan ma garanaysaa dhalinyaro ahaan iyo kan aqoon-yahan ahaan waana ku taageersanahay madaxweynaha tillaabooyinkaas ma garanaysaa waxa weeye uu qaaday oo ma garanaysaa geesinimada leh oo ma garanaysaa iyo meeshii laga soo dhaqaaqay iyo caqabadii hortaagnaa oo madaxweynuhu waxa weeye arrintaas waxa weeye uu run ahaantii u dhabar adeegay midda kale waxa taas horta madaxweynahan ugu hambaliyeynayaa waxa weeye sidoo kale madaxweynaha waxaa ugu hambaliyeynayaa waxa maalmihii ugu dambeysay ciidamadii ma garanaysaa boqolaalka ahaa muqdisho ugu soo xiray tababarka si ay gobolka Shabeellaha Hoose amnigiisa ay wax uga qabtaan ama isbaarooyinka ragaadiyay oo madaxweynuhu aad moodid ma garanaysaa madaxdii hore inuu uga duwan yahay oo fokuskiisa uu saaray sidii ma garanaysaa xagga amniga wax looga qaban lahaa xagga dhaqaalaha oo waxa weeye labadaasba ay ahayd waxyaalaha dadka ragaadiyay run ahaantii madaxweynaha aad iyo aad baan ugu hambaliyeynaynaa waxaan leeyahay madaxweyne hambaliyo dadaalkaagiina halkaa ka sii wad baan leeyahay waxa weeye waan kugu garab taagannahay kan aqoon-yahan ahaan kan dhalinyaro ahaan aad baan kugu garab taagannahaan leeyahay inta kuma soo koobi karo waxqabadka ay ma garanaysaa ay dowladdan hadda ay qabatay oo madaxweyne cabdicasiis maxamed xasan ma garanaysa inta laguma soo koobi karo waxa weeye marka hambalyaan leenahay madaxweyne halkaa kasii wad baan leenahay waxaan u sheegaynaa haddaan nahay shacabka reer koonfur galbeedna inaan taageersannahay baan waxa weeye u sheegaynaa waana ku bogaadinaynaa madaxweynaha aad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa siyaasadda iyo rugcada dhalinyaro ah aadna u falanqeeyay arrimaha siyaasadda xoogaalna u ah in xaaladda ka jirta koonfur galbeed walow ammaan iyo bogaadin aad u weyn oo kala ku dul dhacay maamulka koonfur galbeed hogaamiyaha uu ka yahay ama madaxda uu ka yahay madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagareen sidoo kale ka jaaliyad ahaan gudoomiyihii jaaliyadda Uganda koonfur galbeed iyo waxaan rabnaa asagana inuu bal arrimo ka yiraahdo koonfur galbeed iyo arrimaheeda siyaabaha ay u socdaan bal maxaad adiguna aad ku darsan lahayd gudoomiye xasan soo dhawaad waa dhawahay walaashii faa'iid eedan ma santa ma sha Allah maamulkan koonfur galbeed Soomaaliya hadii aanu walku era horumarada ku dareeran iyo xaaladda meel marahayta kulay una may baana jaaliyadii koonfur galbeed ee Kampala Uganda Nairobi ما شاء الله ما يبلغ أرجعها هرمر بدنه ما ملكو كدريرة أو لندفير كورنا أو هندو لندو قبضة كورنا ما شاء الله إذا كهم بليانا مدعوين عبد العزيز لفت جرين ما يبى أنك باخنا إن شاء الله أنتي وس ملك وسيء وذا ما يولي كونفور كلبت شلي ملي روك تيجي كمروك تأرجعها هنا ما شاء الله ما ملك بدنا دهانت ما ملك بدنا كمسيرة هايان هرمر كميل كدريرة
haddii la er lahay dhinaga ganacsiga dhinaga amniga dhinaga walbarashada walkasta mayba waa maasha allah eedan ka horumarsanta siyaasadda irka mara hayta taasna mayba aan ka hambaliyeeyane madaxweyne cabdicasiis lafta gareen kolley eedan ka hambaliyeeyana maasha allah tan kale mayba waa dhallinyaradan oo maamulka roogtana mayba aan ka baaqi lahaayay intii una ka dadaalna walbarashada maasha allah hata eeda walanbarada haytan hatana mayba la faday intii walbarashada koran qaadan qof walba intii usa qalanka ka dadaala maasha allah jahliga haddii usa geeka noo zuula may waali dad badan qoomiyada badan la tartamaana saasaan ka baaqe maamulkaanana eedan ka hambaliyay maasha allah aad baad u mahadsan tahay gudoomiye xasan sidoo kaleeto waxaan ayadana aan bogaadinta iyo la wadaagi doonaa fikradaha ama ra'yiga uu ka qabo maamulka koonfur galbeed aqoon-yahan siyaasi dhalinyaro ah hogaaminayana ardayda dalkan Uganda reer koonfur galbeed oo lagu magacaabo maxamed cusmaan wallow uu yahay qof dhalinyaro ah in badan xoogaal ah waxaan ka rajaynaynaa koonfur galbeed iyo inuu bal noo faahfaahiyo siyaabaha uu ka filanayo iyo heerarka uu isleeyahay maanta koonfur galbeed waa ay ku tilaabsato horumarinada ka arday ahaan asagoo u soo maraya xagga ardayda kolley walaaraasay Soomaalida sadar muuqda su'aalka dhan madiyan walyar ku taabad may la raayso horumarada banaaran may la raayso maamul goboleedkan ku tilaabsaday oo may la raayso maamul goboleedada kala wili may la raayso una erahayaan maamul goboleed fayle may la raayso ka jeedana niidin dhisanta walbarada haytana niyow dadaalan leeyin alla taabul kore walla oo madaxweynaha Korea may la raayso an sameeyna kumid isla xisaabtanka oo wasiirada wali ogaad jirnay may la raayso wasiir may la raayso sidoo aragani social media kala dareena kale in wadankii miroogna wasiir la xisaabtama may la raayso may qabati anta hadhig ma injeeda may aqabade ka haysadan may an sameeyo waaytay may sameeyo doonto leeyahay aragnay walow wasiiradana ka dhiiridaa may la raayso intii oo eedan shaqeeyaan oo may la raayso walaajo ha ka baxan may la raayso wali lan egmadi tan lamaad may la raayso wala eediyaduna aan bogaadiyana oo la taabado kor wala kumid ah dhinaca amniga maasha Allah kulay eediyada ku shaqeeyaan madaxweynaha horrooban ay goliis wasiirada imay la raayso baarlamaanka shacab shay la shaqeeyaan tan saddexaad oo may la raayso oo ku gobaadiyana oo waana eedan ku faraxsan wala eeta dikreetooyinka badan oo may la raayso hadareeran oo hordhaanki uma han hela jarno sida taliyaasha ay wala lamada wal eedan ka faraxo ma insha Allah maamul goboleedka horroog ay Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen yaa wala erkoreha dhiliyo tan saddexaad tan afaraad oo mashruucyada badan oo may la raayso deegaanadii may la raayso la bandhig ka hay oo mashruucyadaasna sabab u koran dad badan inta ku faa'iideysadaan oo na sameeyay koran may la raayso income badan tan ku dambaysa oo may la raayso oonuna ku faraxan oo arday ahaan oo may la raayso eed aan ku faraxsana oo hamiina ka hayno hiraabtina may la raayso ha ku toosayno wala beeda shaqaaleynta dhalinyartii wala baratay oo lang magacaabo jagooyinka wasiirnimo xildhibaannimo iyo agaasimnimo wali lamada maadaama aan arday walini dhiirigeliyaa samay la raayso hoob la magacaabo ay dhalinyartii wala baradeen simay la raayso ogoontiyo lang faa'iideysan ka arday ahaan waliba nin qasabaas ay uun may la raayso intuu skills kan iyo knowledge kan may la raayso eedan balaarina si uu may la raayso deegaanadan iyo dadkan iyo naftaana u hormarsan weli waxaan kaga jirnaa barnaamijkii aan kaga hadlaynay saameynta uu ku yeeshay cudurka COVID-19 jaaliyadda dalka Uganda ardayda iyo qaybaheeda kala duwan sidoo kale xuskii ururkii RRA aan kaga hadlaynay daawadayaal halka naga daawanaysaan waa telefishinka koonfur galbeed qayb stuudiyiisa dalka Uganda waxaan idin tabinaya anigoo ah Faa'id Aadam Cali Faa'id Duudishe sidoo kale waxaan mar kale aan ku soo dhaweyn doona gudoomiyaha jaaliyadda dalka Uganda Master Xasan Xuseen Daahir oo inaga warbixin doona caqabadaha ay kala kulmeen jaaliyadda reer Uganda cudurka COVID-19 iyo siyaabaha
guud ahaan jaaliyadda saameynta uu ku yeeshay oo inoo soo faahfaahin doono in gudoomiye xasan soo dhawaad xasan إذا ما سنت ولا شيء فائد مركلة إذا كين كمهد عليه هدي أنا هكوا وقتكو إذا نقابن دراديس ولا ليال عذركم كوفيد 19 أو هذا ملايو سيد بلاد كدوات مركون تي أنا معناها عقبات بدن كلوني ودنكم ونروجنا أوغندا عقباتو أنك مهم سنو أن هذا حصو ونكلوني ما يبقى كميت جاليد أهان أنا أو جاليد أفتك هذا لو ما يبقى كميت أنتي معناها جاليدي دمان ولي ومت كونفور قلبتها كجد ودنكم كنول وتجي إلا حدوده جاليدي دمان هو لج أنتي سرمن oo sid bilood buu naata in shaqeyna ma sha Allah dadka taasna dadka kullu mid hayni may weeli lan kasta guriga rooga la eri wadama East Africa may ba ku dubanaynay wadanku una may ba nakaynay totally lockdown wahayni may weeli ge iyo hamiin ba may waa lockdown ka sa hayrada sana saarnayti dadka qaybta ganacsiga hadii ana ka hormara dad badan oo ganacsata oo reer koonfur galbeed iyo macnaha magaalada iyo Uganda dhanka nool ganacsiga oo dhan wada hirmi lankasta dukaan meelonka lahay ama kambaniyinka furnaay kambaniyalsho iyo ganacsiyo kulli macnaha si ku meel gaar ah lan hiri dawladda Uganda taasna may baa dawladda Uganda oo roogna madaxweyne Museveni may bafadaay intii dadka lagu ilaaliyo cudurku intii faafa ma sha Allah taasna eedan kama hasini unina amar shay caddaani aqabado kala kumid ay buu qofkii isbitaal anfadow ama qofkii xanuunsada ama qofkii hamiin laha qobada amal intii baha korna may weeli hamiin geemelo bando saarnay qaasatan hamiin aan badanayti oo door hamiin dheedii intii macnaha dadka gaar lan qaado askar la weedado dadkaas la weedo la qaado isbitaal saas la kijay ma sha Allah hatana kulay cudurkii gabagabu noo dhamaadi may ba ambaahnya insha Allah intii ولا يردمن أنتي هجانسن أمرض دولة أوغندا أو صدق حتى مركان حس ماسك عمل حتى أهير دويل أريلان كي ودد مرة حس ماسك أفكار إنك هير ناين ويهيره حبسك تده كويردون إن شاء الله ماسك أهيرنين وقت كي بندو جامين جرى إلى الدرير نوي كي ويدرير كور لكن ميلو غارمي سيد كور إذا ما سنتين تاساسين كوبا إن شاء الله على بقى وحالكان إنه جبدي برنامج كي أنا قلبت كود إني أنك جهد لإني سامنت وكوي شدال في يوغندا رير كوفر البيت جالية ده أرضي ده قبه هذا كل الدول دنك وحبرشة جناعسجة أما بالشدة رير كوفر البيت ده في يوغندا وأنك جهد لإني سامنت وكوي شعور كوفيد 19 سيدا كليت برنامج كوحل ما تقول فلانقيني المامل كوفر البيت وحيابها أو تيكسدي ومدحوينها كي هي عبد العزيز حسن محمد لفتقرين sidoo kaleeto barnaamijka aan kaga hadlaynay sanad guuradii 6 Juun oo ku beegan maalinkii la aasaasay ururka Arare alaab waxa barnaamijkan idin soo tabinayay aniga oo ah Faaid Aadan Duudishe waxa qaybta kaamirada iga caawinayay walaalkay Samiir وبالله توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن تنبأ xiisa leh